السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد صاحب بيال قضبضا وركة توبسن ميديا ساكو يدين هايو حافو كل واقينو بربوره هشيسيدي قلمو يسيدو كلا اسبدل كو يمد هشيسيداسي شعبي شباب كل دقالمي ديغان كترسن قبل كهيران xubno ka socda labada golo oo maanta ku wajahan cadaado ee galgaduud madaxweynaha koonfur galbeed oo si kulul uga hadlay isbaarooyin la sheegay qayb ka mid ah gobolkaasi inay yaalaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan Tubsan Media balse haddii aad hadda nagu soo birto fadlan subscribe noo dheh si muuqaalada cusub ay ku soo gaaraan al-shabaab iyo kooxda macawisle ee ku dhaqan degmada waa deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ku dagaalamay halkaasi wararka ka imaanaya inta u dhaxaysa deegaanka Halgan iyo degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal u dhaxeeya dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab iyo kooxda macawisle oo ka dhacay halkaasi dagaalka ayaa waxa uu soconayay muddo saacado ah waxaana markaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalkaasi kooxda macawisle ayaa waxa ay diidan yihiin in al-shabaab dadka ay ku dhibaateeyaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan inta la ogyahay 7 qofood ayaa ku geeriyootay halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen sida goobjoogayaal ay u sheegeen Tubsan Media ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhinacyadii ku dagaalamay inta u dhaxaysa deegaanka Halgan iyo degmada Buulabarde madaxweyne xaafna waxa uu sheegay inuu burburay heshiisyadii ahlu sunna war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa sheegay in uu burburay heshiiskii hore u dhaxeeyay maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna iyo maamulka galmudug sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ogol yahay in doorasho galmudug ay ka dhacdo isla markaana lagu qabto magaalada cadaado ee gobolka galgaduud bisha soo socota ayaa la filayaa in doorashada ay ka dhacdo magaalada cadaado ee gobolka galgaduud guud ahaan wararkeeni intaasi ayaa ku soo gabagabeynaynaa dhammaan waa ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warkeena fadlan subscribe deh warkan warka xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan kaga tegaynaa bahda Tubsan Media salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wa barakaatuhu